agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Jamhuuriyadda Somaliland Axmed Abubakar Maxamed ayaa fariin u diray maamulayaasha dugsiyada dalka isla markaana waxa uu soo jeediyay inay fuliyaan habraaca ka hortagga xanuunka COVID-19 oo soo labakacleeyay agaasimaha oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa xarunta wasaaradda waxbarashada ee magaalada Hargeysa waxa kale oo uu sheegay inaanay jirin wax fasax ah oo ay wasaaradda waxbarashadu soo saartay oo lagu fasaxayo ardayda dugsiyada isagoo arrimahaasi ka hadlayana agaasime Axmed Abubakar waxa uu yidhi si alla wada socotaan waxa soo labakacleeyay xanuunkii coronavirus ee safmarka ahaa sidaa daraaddeed halkan waxaan fariin uga dirayaa dhammaan dugsiyada dalka oo dhan maamulayaasha guddoomiyaasha gobollada ee waxbarashada iyo dhammaan mas-uuliyiinta gobollada jooga in ay ka foojignaadaan xanuunkan sidaan hore u sheegnay xanuunkan dawada qulu leeyahay waa ka hortag weyn markaynu ka hortagno ayaynu ka badbaadi karnaa dhibkiisa qofkuna naftiisa ka badbaadin karaa ummadana inuu ka badbaadin karnaa wasaaradda waxbarashadu waxay soo saartay habraac loogu talagalay markaa in dugsiyadu ay raacaan nidaamka maadaama xanuunkaasi jiro habraacaas runtii sanadka hore aan soo saarnay dugsiyo badan way fuliyeen markaa guddoomiyaasha waxbarashada ayaa runtii mas-uul ka ah inay ku dabagalaan maamulo kasta iyo dugsi kasta soo habraacaas u fuliyey habraacaasna runtii wuxuu inaga badbaadinayaa in ardaydu ay si wanaagsanna kalaaska wax ugu bartaan iyagoo bad qaba meelaha kalena runtii aanay xanuunka geyn saad ogsoonay markaa habraacaas waxyaalaha ugu muhiimsan waxa weeye ardaydu inay 1 mitir kala fogaadaan fasalka tirada ardayda ku jirta inaanay ka badnaanin 45 arday marka habraaca uu qoran yahay isagoo qoraal oo haysataan mar labaadna guddoomiyaasha gobollada oo loo diri doona oo la wadaagi doona iyo dugsiyadaba habraaca waan jecelnahay markaa in siisa lagu dhaqmo marka dabagal bay wasaaraddu ku samayn doontaa kormeer baa la samayn doonaa goobta waxbarashada habraaca fulin weyda runtii talaaba laga qaadaya waayo badqabka ardayga iyo caafimaadka bulshadu waa mudnaanta koowaad iyada waxbarashada ka horeysa waxaan dhammaanteen idinku adkeynaya marka inaynu habraaca siisa ugu dhaqanno ilaahay waxaynu ka baryaynaa xanuunkan inuu hareero mariyo waxaynu ducaynaynaa intii ku dhimatay ee bahda waxbarasho ka tirsanayd iyo dhammaan inta kale dhimatay xanuunkan waxaa halis gaar ah markaa dadka waaweynna waxaa markaa u keenay inta badan dadka yaryar baa u keenay dhalinyarada ama carruurta marka waxaan jecelnahay si dadkeena waaweyne aan iyagana dhib u gaadhin ardaydeena goobaha waxbarashada joogta iyo dhalinyarada goobaha la isugu yimaado joogtaba runtii in la kala fogaado in markaa faraha markaa la faraxasho oo markaa habraaca siisi loo raaco marka ilaahay baa badbaadada haya ilahay waxaan weydiisanaya naga badbaadiyo inaguna inaynu taxadarkii iyo la nimaadno markaa daryeelkii la nimaadno geesta kale agaasimaha guud wasaaradda waxbarashada ee sayniska Axmed Abubakar Maxamed ayaa waxa uu sul taagay in haba yaraatee aanay waxba ka jirin wararka la geliyay baraha bulshada ee ka hadlaya in la fasaxayo goobaha waxbarashada isla markaasina waxa uu tilmaamay in si habsami ah waxbarashadu u socon doonto waxaan la socodsiinaynaa dhammaan bulshaweynta Jamhuuriyadda Somaliland iyo ardayda iyo dhammaan bahda waxbarashadaba inaanu jirin wax fasaxa wasaaradda waxbarashadu fasaxday dugsiyada waxbarashada waa la dhiganayaa warar been abuura baa la soo geliyey maalmo dhoweyd baraha bulshada arrintaana dabagal bay ilaamaha ammaanku iyo sirdoonka ku hayaan waxa weeyaan ciddii talaabadaasi ku caddaatana kule dembigaas ayay dee mutaysan doontaa waxaan u sheegaynaa goobaha waxbarashadu way furan yihiin waxbarashadu way socotaa keliya habraaca iyo dardaarankaasi wasaaraddu xoojinaysaa in habraaca siisa lagu dhaqmo fariintaana waxaanu gaarsiinayaa dhammaan waalidiinta iyo bulshada oo dhan Cabdikariim Saciid Saalax telefishinka Home Cable Hargeysa